Culummada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa cambaareeyay falkii barakicinta iyo tarxiilka loo geystay dadkii ku noolaa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Culummada Soomaaliyeed ee magaca iyo miisaanka ku leh bulshada Soomaaliyeed ee Mareykanka ayaa sheegay in arrintaasi ay ka soo horjeedo Islaamnimada, Soomaalinimada iyo bini'aadanimada, iyaga oo ku baaqay in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadkii la barakiciyay. Culummada ayaa sidoo kale codsaday in la xifdiyo hantida dadkii la مسافرية إسلام مركانا ديب لوجو عليو دتكي لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وكمل ولين سكويي ولماذا أخيارتي قولك مينيسوتا سي ولا أنك إيران دبكي كدي مقالة لاسعانود قولك الصول دبكاس ميلو كدي ولي ولا كديرنا dad masaakin bilaan awlaad dogaal igadisay in iska jara hoob ilaahay ulamaada walwalku raayana dibkaas meel ku dhii isi dadkaas walan qabada lahay aawa meeshan waxa isugu yimid culumadii iyo akhyaartii magaalada si ay wax uga dhahaan dibkii ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool dhibkaas wuxuu soo gaaray dad masaakiin ah oo dumar iyo caruur odayaal iyo ganacsato isugu jiro hadduu ilaahay yiraahdo culimadu waxay wax ka dhihi doonaan dhibkaas meesha ka dhacay iyo sidii wax looga qaban lahaa marka hore waxaan u yeerayaa Sheekh Maxamed Mursal oo bayaanka akhrin doona soo Sheekh bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ورصحافدات كو آدن تذكي الله سعانود لغا بركعيي بيانكم حصو صاري علماء صوماليات قبلكم مينيسوتا وحن رواينا الأخريو قضبضا بيانك كو marka koobaad anagoo ah culimada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waxaan aad uga xunnahay dilalka iyo falalka alxandarrada ah ee ku soo laalaabtay magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda waxaanan cambaaraynaynaa cid walba oo ku lug leh xasilooni darrada ka jirta gobolka Sool. qodobka labaad waxaan bogaadinaynaa shacabka reer Somaliland oo mar walba u taagan soo dhaweynta kaalmaynta iyo taakulaynta dadka Soomaaliyeed ee walaalahooda marka ay yimaadaan deegaanadooda iyo marka masiibooyin dabiici ah ay ka dhacaan deegaanada Soomaaliyeed ee kala duwan. qodobka saddexaad waxaan cambaaraynaynaa falkii barakicinta iyo musaafiriinta isugu jiray ee maamulka Somaliland kula kacay qaar ka mid ah dadkii deganaa ku noolaa كان شقيسان هاي مقالة لاسعانود قبل كسول. قضبك أفراد وحان عدينا إنا فالكني إنو كسوهر جيدو إسلام نمدا صومالي نمدا إيو بني آذن نمدا انتبا. قضبك شانات وحان فرينا وانبورينا إنا إن لا تاغيرو قرب دق دق أنا لو في ديو ولا لها كوحيو اللوبي dhibaatadaas qodobka lixaad waxaan codsanaynaa in dadkaas hantidoodii ay ka tageen loo xifdiyo sida ugu dhaqsaha badanna loo gaarsiiyo qodobka toddobaad waxaan xusuusinaynaa dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan madax iyo shacab intaba inay ilaaliyaan qofka muslimka ah diintiisa naftiisa sharaftiisa يا مالكيسة وحانا حسوسنا إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيسة هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إله وحيري إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سوك الإله سبحانه وتعالى آياتك لو حكولي هاي واعتصموا بحبل الله جميعا لما أنت قبصد حرق إلهي نبي عليه الصلاة والسلام وحولي هاي المسلم أخو المسلم حاكل يري النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا
في بلدكم هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت معنوه waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dhiigiina iyo maalkiina iyo sharaftiinu intaba xaraam weeye qofka muslimka ah dhiigiisu waa xaraam xoolihiisu waa xaraam cirdigiisa in lagu xadgudbana waa xaraam ugu dambeyntii waxaan allah ka baryaynaa in ummadda Soomaaliyeed dhex dhigo nabad walaaltinimo iyo isjacayl wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bayaankan waxaa soo saaray culimada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka jazakallahu khayran sheekh maxamed mursal haddana waxaan u yeerayaa sheekh xasan jaamici ama imaam xasan jaamici بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين مركور إلها مهدله waxaan taageeraynaa anagoo ah culimada Soomaalida ee gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka bayaankii hadda uu akhriyay Sheekh Mursal culimada doorkooda ugu weyn waxa waaye bayaanul xaq xaqa inay cadeeyaan ونصرته xaqaasna inay u gargaaraan oo nusrata ahlihi dadka xaqa leh inay garab u noqdaan sheekha bayaankiisa waxaa ka mid ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu xadiis ku tilmaamay in qofka muslimka ah dhiigiisa maalkiisa iyo sharaftiisa in lagu xadgudbo inay xaraam tahay culimada muslimiinta waxay yiraahdeen iyagoo xadiiska sharxayo waxaa dulmi ah ku xadgudub naf aan sharciga islaamka banaynin ku xadgudub maal oo sharciga islaamka aan banaynin iyo ku xadgudub acraad ama sharafta insaanka ama dadka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri unsur akhaaka ظالما أو مظلوما walaalkaaga garab u noqo haddii uu ظaalim yahay iyo hadduu madluum yahay asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay yiraahdeen yaa rasuul allah sala allahu calayhi wasalam waan garannay waan fahamnay qofka madluumka ee la dulmay in garab loo noqdo kan dhaalimka ah see garab loogu noqonayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri waxaad ka qabanaysaan oo aad ka joojinaysaan dulmiga dad walaalo ah oo Soomaali ah oo muslimiin ah in guryahooda laga soo barakiciyo hantidooda laga soo barakiciyo in iyaga caruurtooda la kala dhex galo waa dulmi lidalika waxaa waajib ah anagoo raacina nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii hadda aan akhrinay anagoo إلهي سبحانه وتعالى كأمر قادنا إنه إلهي ودها ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قرب يعني لسكو سينين دنبي فالدنبيات إيه عداوة نمو وحيد دعوة فالدنبيات وأنا عداوة ضد مسلمين أو ولا لا أو أصلا الشيء لقد حبوا رأيه ولا لا ما ملك الصومال لانسي خاصة وحمسوسنا يا asalka dawladda islaamka ama shacabka muslimka ah inay tahay inay garab isku noqdaan oo xuquuqooda ay wada ilaaliyaan khaasatan dadka tabarta daran nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum waa riwaayad imaam Bukhari uu wariyo saxiix ah waxaad ku helaysaan garab ilaahay Somaliland Soomaali weyn meel kasto aan joogno ilaahan garab karabna rasuulku wuxuu rasuulay salaam waxaad ilaahi subhanahu wa ta'ala kaalmadiisa inuu garab idin noqday ku suurtagelaysaa oo risqiga meel kasto ka yimaado marka aad dadka tabarta daran aad garab u noqotaan nin sheekh culimo ayaa sharaxay xadiiskaasi waxay dhahan waa shan dadka aan tabarta daran waa masaakiinta waa dadka fuqarada aan waxba haysan waxay dhahan waa caruurta waxay dhahan waa haweenka
waxay dhaheen agoonta dadka culamo qaarkood waxay ku dareen dadka waaweyn oo da'da ah intaba dhib iyo dulmi ayaa ku dhacay waxaa lagu xadgudbay hadalkii ilaahay walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan waxaa lagu xadgudbay hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo haddaan idin soo akhriyey ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa wuxuu noo sheegay xadiis kale hal tunsaruuna ilaa biducafaa'ikum xadiiskaas wuxuu raaciyey bidacwaatihim wa ikhlaasihim waa xadiis saxiix ah waxaa garab ilaahay subxaana wa taala wuxuu idinkugu gargaarayaa oo keliya oo danihiinna iyo waxaad rabtaan uu idiin siinayaa oo keliya marka dadka idinku tabarta daran ay idiin duceeyaan oo iyaga iyo salaadooda xadiiskan wuxuu ku darayaa iyo salaadooda markay dadkii oo ducayn lahaa dadkii meesha salaada ku tukan lahaa dadkii khayrkooda iyo wanaagooda idin soo gaari lahaa oo walaalihiina ahaa idinla dhashay islaam ahaana caqiido naga wada dhexayso haddaad dadkaas barakiciso waxaad ka hortimid xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu dambayntii iyo gunaanidkii intii dhacdadan mas-uulka ah culamo ahaan waxaan xusuusinaynaa ilahay inay toobad keenaan ilahay wuxuu amray yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniin haddaad tihiin ilahay u toobad keena tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa tawbatu nasuux culummadu markay sharxayeen waxay yidhaahdeen 4 shuruud ayaa la sheegay waxaa ka mid ah haddii meesha hanti ama naf ay wax ku gaarto in magdhow la bixiyo hantidaasna la celiyo sida sheekha bayaanka uu noo akhriyay sheekh mursal uu sheegay dadkaasi hantidoodii degdeg in lagu celiyo wixii dhib gaaray oo dhanna magdhow buuxda maamulka halkaas ka jiro ee Soomaaliland inuu ka bixiyo in maamulkaasi walaalaha iyo Soomaali oo dhan meel kasto ay joogaan in ay ugu cudur daartaan falka dulmiga ah meesha ka dhacay oo ilaahina aan raali ka ahayn wadadii nabiga calayhi salaatu wasalaam aysan ahayn si raxmadda ilaahay iyo gargaarka ilaahay aan u helno oo ilaahay uu noogu naxariisto cara ilaahay saan ugu badbaadno والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيرا شيخ حسن. هدنا وحن ويري إن شاء الله تعالى شيخ أحمد تاجر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صال مغليسين وحان علماء مسلمين هان صومالي هان كحن هاي عضادي أرقاق حيان فرير كالهيد وقف كستو الصومالية دافها دون كمال كستو جوغة ثابتي تاس بانو سوون مدينة أنه دينها كهذا الله تاسو دين النفر رسول النبي الله صلى الله عليه وسلم قفك منكر حمان أركا قعنتها كزولي تام أول كرينو فبلسانه إنا نعد كنغا مقشينو وواجب ديني حديث كلا دنبي قالينا هذا كان ورا ليال وحين لوجن هاي الله سبحانه وتعالى وحاكم إذا مقعيدي سأي سفوين كيس الرحمة الرحمن الرحيم إلهي نحارس باكم إذا سفوين كيسه النبي صلى الله عليه وسلم عليه يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والنحارس مخلوق للك كنول رب سبحانه وتعالى أي إذن حارسنا إياه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الراحمون ذاتك النحاريستان يرحمهم الرحمن الله الرحمن كله يقانو أياه نحارسان هيا إخواني في الله النبي صلى الله عليه وسلم محوت المامية مركي حتى عذو ولا دغالمايو إن قاب قرح بدن لو ديلو إن الله كتب إلهي إحسان كأي إن شيء كسل إحسان فلو أيها رب سبحانه وتعالى واجب كردقين مركز سواسي فسيري وحيري وإذا قتلتم فأحسنوا القتل حتى مركز على ودي الإنسان كاس ورجال قابك اللودي وإن قرحيان وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة حيوان كمركز لجورعي جيل يارج الله مركز الحياة عقيقة يحفل بها مشروع لو جورعي إن قاب قرح بدن لو جورعي دين النفرسة
saasta waxaa la farayaa in xayawaanka la gowracayo in meel ka qarsoon birtii lagu soo afeeyo kadibna hal mar dhuunta lagu jaro taa waxaan ka wadnaa kolle maamulku waxay rabaan bay suubin karaan oo fikirkooda iyaga u madax bannaan guud ahaan waxaa suurtagal in qaab u arkaan maslaxada laakiin waxaan marnaba caqliga ogolayn qaabkii walaalada loo barakiciyay maadaama leh xayawaanka markaad gowracaysaan fa axsinu dhibha gowraca qaabkiisa qurxiya marka qof bilaadam oo muslima haddana Soomaaliyeed haddana qarabo raxima qaabkii loo barakiciyay waa qaab inferior hadalna waxa qof kasto oo muslim oo luqada ku hadla eragaasi ama qaabkaasi wardaba gabagabada guuraanadkii walaalada isaga in loo gurmado diinta faraysa waxaan leenahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya qofkii naf kurbooyinka adduunka saaran ka fayda Allah subhanahu wa ta'ala maalinta aakhira kurbooyin fara badan ayuu ka faydiyaa marka walaalaha Soomaaliyeed oo haddaba kacay meesha joogeen iyo halkay tageen iyo meel kastaba walaalada soo dhaweeyo ka danqaday baan u duceynaynaa waxaan u dardaarmaynaa qof kasta oo Soomaaliyeed meel kasta oo joogo oo ay ka mid yihiin shacbiga ku nool Minnesota iyo Mareykan in walaalada loo gurmado in gacanta loo taago dhibkaas soo gaar codkeedii in loo badan u baahan insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala qof kasta oo hawsha gacan ka geysta Allah subhanahu wa ta'ala Allah u naxariisto wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khairan Sheikh Ahmed Haajir haddana waxaan u yeerayaa Dr. Sheikh Abdulrahman Sheikh Umar u yeerayaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين بيانك soo saarnay ayaan taageersanahay insha Allah ta'ala ra'yiga culimada iyo wixii aan dheelayn halkaas ayaan ku cadeynay insha Allah ta'ala culimadii ka dambeysayna ilaahay khayraasi subhanahu wa ta'ala anigu kelmado kooban aan dhahayaa culimada marka ay wax ka hadlaan qof walbay la hadli karaan qof walbay maarad wax u sheegi karaan dawlad kasta iyo nidaam kasta wax u sheegi karaan marka waana inay uga qaataan dadka nasiixa inay tahay dadka walaalaha ah ee la barakiciyay ee habeen madow la soo raray oo dhibka ku dhacay oo maata leh oo qof kasta leh nin kasta waa ka damqaday runtii waxaana keenaysa caqiidada islaamka iyo diinta islaamka walnimada islaamka in laga damqado nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد مؤمنين تا سنة حريش شدودا هي استعايل كودا وحلمدين هالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هدي وحبن كمذا يحنوسته دمان ويحنون سنايان dhammaan way seexan may xibnaha kale waa la soo jeedaa saasan ula damqanayna waxa kale oo waajib ah waxa ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas dadkii kuwa u khayr badnaaya ilaahay idin ka dhigay subhanahu wa ta'ala maxaad ugu khayr badantiin ummadaha ta'muruna bil ma'ruf wa tanawna 'anil munkar wax wanaagsan waa isamreysaan waxa xunna waa iska reebaysaan arrinkan waa arrin munkar ah waa arrin in la iska reebo gacanta la iska qabtay waajib tahay hadii kale waxa ka imaanayo ciqaab ummadda dhan ku habsado ayaa ka imaanayo nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri wala ta'khudunna ala yadi zalim wala ta'turunahu ala alhaqq adra aw la yushikanna Allah an ya'ummakum bi'adab qofka gardaran gacanta qabta oo ku celiya xaqa ku celiya wala ta'turunna ala alhaqi adra ama waxay u dhowdahay cadaab idin guud kulligiin idin ku dhaco inuu ilaahay keeno marka waxay u tahay samaamul amaan waxay u tahay culimada inay hadlaan oo wixii dhib oo dhacay laga hadlo oo laga reebo qofka daalimka ah oo sameeynayo qofku doona ha noqdo arrintaas ummadan ugu khayr badannahay ummadda saasaan maaragtay ilaahay noo doortay subhanahu wa ta'ala ummadii u kharbinaanahay
waxaan ilaahay subxaana watacaala ka baryaynaa yacni 30 sano u dambeysay ama 40 sano u dambeysay dhowr iyo 30 sano u dambeysay Soomaali dhib haystay waxaan ilaahay ka baryaynaa dhibka inuu ilaahay ka qaado subxaana watacaala oo ummadda ilaahay ka dhigo ummad walaalo ah cadow badana dugsi ayaa ku hareeraysan tira ahaan ma badna haddii intaa yartaa ay sii kala faniinto oo ay sii kala jajabto cadaawad isu qabato waxay noqonaysaa in kulligood dhan ay baaba'aan marka ilaahay subxaana watacaala ummaddana ha ka dhigo ummad mid ah arrintaana waa arrin ugu cusub in maaragtay insha allahu aysan soo noqona ilaahay ka baryayna subxaana watacaala sidii la sheegayna dadkaas maaragtay xaqoodii iyo wixii laga qaaday iyo wax alaala wixii ka maqan in loo soo celiyo saasaa maaragtay xaq ah insha allahu tacaala ilahay waxaan uga baryaynaa qof walba oo ka shaqeeya arrinkan oo khayrka inkiray munkarkaas in ilaahay ajar ka siiyo inta kalentoo dembiga sameynay ilaahay uu ka dhaafa subxaana watacaala walaalnimadana isu soo celiyo ummaddan nacaybka iyo yacni xaqdarradana ilaahay ka badbaadiyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu جزاه الله خيرا شيخ محمد سيسن دغسن علماده اي اخيارتي بين سكويتي او ka wali walku eraayana dibkii ku dhigay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool dibkaasoo linjaysidii bilaan iyo awlaad dagaal iyo gadisley hob ilaahay insha Allah taala wal intu ka damboy dadkaasina wal qobada fadni iyo tabtiye galaan hob ilaahay marka insha Allah taala ikhwaani halkaas ayuu shirki jaraa'id uu noogu ogyahay iyo bayaankii culimada ay soo saareen waxaan soo dardaarmaynaa in dadkaas la dhibaateeyay ama dhibtu ay soo gaartay in wax la qabto oo loo gurmado meel walba aan joognaba insha Allah jazakumullahu khairan assalamu alaykum